sida aynu wada ogsoonnahay waalidka ayaa udub dhexaad u ah nolosha aadamaha iyadoo aanu qofna ka maarmin daryeelkooda iyo weliba taageeradoodaba walow aanay labadooduba kala dhicin ayaa haddana hooyadu ay miisaankeeda gaarkaa leedahay khaas ahaana marka la eego barbaarinta ubadka iyo weliba daryeelkoodaba haddaba dhegaystayaal sheeko waayahaasi aynu soo tibaaxnay ka duwan ayaa maalmihii lasoo dhaafay warbaahinta dunidu ay hadal haysay taasi oo ku saabsan hooyo wiil ay dhashay ku dhowaada 30 sano iftiinka ka qarisa islamarkaana guriga ku dhaxabistay dhacdadaasi oo markii la ogaaday suurtagalnimadeeda dad badan ka degi weyday kadib markii si lama filaana loo ogaaday xaaladda wiilkan oo sheekadu ay soo ifbaxday bal haddaba dhegaystayaal waxaan soo dhoweyn doonaa wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo badanaaba xubintan inala wadaaga waa mahadsantahay cabdixakiin sheekadan cajiibka ah waxay ka dhacday dalka Sweden magaalo u dhow caasimadda dalkaasi Stockholm waana qiso cajiib ah oo si weyn looga hadalhayo oo dadkan ay isweydiinayaan saxaafadan ay aad uga hadlaysay maalmihii tagay waagan cabdiqaadir saa tilmaantay warbaahintii dunida oo dhan way ka hadlaysaa waa wax aad loola yaaban yahay bal og yahay sababta rasmiga ah ee gabadhaasi ama haweeneydaasi u samaysay tallaabada noocaas haweeneydan horta waa qof weyn oo da ah oo 70 jir ah wiil hore oo ay dhashay ayaa ka geeriyooday marka taas ayaa saameyn ama uurku taalo kaga reebtay oo maskaxiyan ah marka waxay istiri bal wiilkan si aad u badbaadiso oo uusan kaaga fogaanin jacayl ay u qabto dartiis ay sidan u samaysay oo wiilkii oo 13 sano jir ah ayay silsilado ku xirtay ayay guriga kula xirtay haddana waa 40 sano jir 28 sano ayuuna u xirnaa wiilkeeda iyadoo sidaa u samaynayso saamayntii ay kaga tagtay geeridii ku timid wiil hore ay lahayd ama ay dhashay marka waxay islahayd wiilkii uu ka fogaanin oo halkaaga ku ilaasho sidaa ayuuna ugu xirnaa muddo 28 sano ah magacii wiilkii hore ayayna u bixisay markaynu leenahay dhowr iyo 20 sanadood muddo yar ma waa muddo dheer waana wiil iyo hooyadii ama waa qoyskaasi sidee lagu ogaaday ama sheekadan ku soo baxay sheekadan way adkaan lahayd in la ogaado laakiin sidaan la soconno hooyadii wiilka uu xirnaa ayaa isbitaal gashay oo xanuunsatay isbitaalka markii la dhigay ayaa eheladeedii ayaa ka soo wardoonay sidaan la soconnana dadka wadamadaas lisuma tago guryaha lisuma haleelo waqtiyo ama munaasabado gaar ah ay dadka isbooqdaan marka iyagii ayaa xanuunkeedii ku soo baxay oo booqday booqashadii markii ay soo dhamaysteen ayay haddana gurigii booqdeen oo ay tageen markay guriga fureen ayaa waxay arkeen qashin nadaafad darro ur ka soo go'aysa iyo waxyaabo aad runtii aad u madow oo wasaq badan marka gudihii ayay u galeen markaas ayaa waxay maqleen cod daciif ah oo qof aad u liita codkiisa oo dhibaataysan hore ayay ugu sii baxayn kadibna waxa uu noqday ninkii dhalinyarada ahaa ee 28 sano xirnaa oo weli tabtiisii ama bartiisii ku xiran kaasoo busto yani aad duug u ah oo wasaq badan ku fadhiya isla markaana xirxiran iyadoo weliba ilkii ay ka jaban yihiin duruufo adagna ay ka muuqdaan dabcan waa wax aad u cajiibayn ilmaha noocaas arkaan ma aqoonsadeen in wiilkii yahay maxay tallaabo qaadeen way aqoonsadeen inuu wiilkeedii yahay kadib waxba tallaabo saas ah ma aysan qaadin booliska ayay waceen booliska ayaana u yimid halkii ayaana laga qaaday oo ninkii silsiladaha looga furay isagii ayaa marka isbitaal loola cararay oo hadda la daweynayaa marka dhaqaatiirtana qaliino iyo waxbay ku sameeyeen xaaladiisa ayaa lala tacaalayaa sidoo kale xarigaasi ayaa laga cabsi qabaa in dhibaato maskaxeed uu kaga tegey marka kadibna booliska ayaa hadda baaraya oo baaritaan ayaa ku socda ugu dambayn haddaan ku weydiiyo hooyadii waatan way xanuunsanaysay iyadii cusbitaal baa la dhigay xaaladana way ku soo baxday iyadii maxaa laga yeelayaa ma la sheegay iyada waxay u badan tahay baaritaanka marka uu dhammaado in ay xabsi gasho inkastoo ay 70 sano jir tahay haddana dembiga ayaa lagu qaadi doonaa aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi nala socodsiinay